arrimaheena balse marka hore saaxiib ma tahay jacaylkiisa qof taageersan ma tahay qof ku faraxsan inuu guursado gabadhan quruxda badan ee Soomaaliyeed maxaad ka ogtahay inuu jacayl ka dhaxeeyo labadan qof Idrisle maya arrimaheena Idrisle waxa ayaa maskaxda naga qoful arrimaheena iyo jacaylkiisa dhabta waaw aniga ayaa maanta barnaamijkan kula wadaagaya hadii aad ku faraxsan tahay arrimaheena inuu guur xalaala iyo marwo xalaala yeesho hana tahay faniskiisa waxaan ka codsanayna inaad subscribe ka dhac ka siiso soo kalena aad barta kameelka ka furato arrimaha xasaasi ayaan saaxiibaanta kula wadaagaya laakiin marka hore waxaan ka codsan doonaa inaad YouTube-keena subscribe dhahdo videogan like gareyso share-na u dhahdo asxaabtaada kale ee kugu xidhan aba asxaabtaada Facebook iyo YouTube-ka saaxiibka ku tiid saaxiib YouTube weyn hadaad leedahay waxaan ka codsanayaa inaad YouTube-keena noo sii share gareyso mahadsanid laakiin codsi kale ayaa jira waxa lagu jiraa bishii barakaysanada Ramadaan qaasatan 5 cisho ugu dambeysay waxaan ka codsanayaa muuqaalkan hadii aad aragto adigu waqtiga salaada ku tahay inaad si daawan oo salaad soo tukato ka dicid oo soo noqoto oo si fiican u daawato muuqaalka mawduucan waxaan ka hadlaynaa arrimaha xasaasiya taasi hore u maqal inaad maqli doontaan Allahu a'lam maadaama aan ogeyn waqtiga aan dhiman doono iyo xagga aan nafteena ku jirto waay arrintan iyaan ka codsanay laakiin waa codsiga ugu dambeeyay salaada hadii ku tahay waqtigeeda soo tuko markasta haday Ramadaan iyo hadii kaleba waayo salaadu waa tiirkeena ugu weyn ee diinta Islaamka waana shayga qura ee ugu horeeya ee aan rabno in aan rabbigeen subhanahu wa ta'ala inaga aqbalo si amalkeena inta kalena ha uu inooga hagaago haddaba mawduucana oo soo noqono arrimaheena jacaylkiisa cusub iyo hawshan oo dhan ayaan maad faafaynaa laakiin marka hore arrimaheena ma ku taqaanay arrimaha jacaylkii waxas maya kuma aqoonay wuxuu ahaa YouTube-ka iska jira asxaabtiisa maarta u dadaalaya iska ciyaal YouTube laakiin hadda waxa uu noqday nin si weyn jacaylka u qiimay maadaama uu yeeshay jacayl weyn oo uu si weyn maaragtay baraha bulshada ugu faafay gabadhan idin muuqata yani kan idin muuqday arrimaheena waa lamaane waqtigan wixii ka dambeeya jacayl dhab ah ayay wada onkeen waxaana la rajaynayaa inay midhihiisa maali doonaan 2 sano ka hor hadaad xasuusto ma xasuutaa waa 2 sano ka hor waxa la soo bandhigay inay gabadhan iyo isjecel yihiin arrimaheena waa ninkan aadka u qosolka badan waa ninka dhiirigeliya saxaab badan oo barta YouTube ka hormarka gaaray waa nin waqti badan ku soo jiray YouTube 700 oo kun subscribe ka badan ayuu ku xidhantay waaw haddaba riyada waqtigaas ay saxaabtu soo qaatay amba loo saadalay ayaa maanta rumoobay ka waran ma rumaysan kartaa arrintan aniga ayaa ku rumaysinaya arrimaheena markii uu gaaray 700 oo kun subscribe waa dad xasuusto waxa ay u keentay ubax qurux badan oo fiyoora waaw abti xaybidi shina colayo kala miya shina booka abti xaybi isku bedelay iyo manaal beltaaji laakiin ma arrimaheena u jacayl haday mar haday shiniyo manaal bas kursi 700 oo kun subscribe maalintu gaaray arrimaheena waxa ubax qurux badan oo fiyooriyaal ku lamaan yihiin u keentay gabadhan quruxda badan ee sawirada had moodo filmaanti indigoo kale ay isla galayaan waxa uu arrimaheena waqtiga wixii ka dambeeyay la qiirooday jacaylka wahayo ubaxan wax ugu qoraa 700 oo kun subscribe iyo sidoo kale inay tahay qof taageera jacaylkiisana ah arrimaheena markuu intaas arkay waxa uu la ilmeeyay farxadda way ka tanbadatay ma uusan si adkaysan karin waxa jirtay sawirro ku jira oo aan ka soo qaaday inaan ku ilmada iska tiraya waad arki doontaan muuqaalka inaad ku soo aragteen waa laga yaabo inta dambanaad ku aragtaan laakiin haltan kuma jiraan saaxiib waxa waqtiga ka dambeeyay arrimaheena waxa uu isweydiiyay gabadhan jacayl ay san ugu soo dhawaanaysa asxaabtiisuna ay la jecel yihiin sababta uga fogaanaya maxay tahay waxa uu go'aansaday inuu inta jacaylkeeda la qaban qaabiyo gacantana uu kula dhigo si ay jacaylku noqdo muxuu ku macayahay jacaylku sidoo ogtiin in ay labada qof isjecel yihiin ay gacan birana ku wada hayaan jacaylka laakiin hadii kale wuxuu noqonayaa mid bilaa qiimo ah oo sharaf iyo cinsi iyo karaamid lahayd waaw haddaba arrimaheena waxa 100% go'aansan inuu gabadhan guursado oo uu noqdo qof si dhab ah u jecel maadaama iyadba si dhab u jeceshahay oo ka fikirayso waqti walba mar walba iyo maalin walba oo xataa ay tahay qof oo iyadu u xisaabsan yahay qayb ka mid ah nolosheeda arrimaheena iyo gabadhan waxay sheegeen si leefan u shaaciyeen inay iskuursanayaan waayo waa 2 qof oo isjecel isku faraxsan gabadhan waxa uu dooshay dalka Malaysia ay hadda kula sugayeen muuqaalo qurux badan ay ku sameeyeen sawirro qurux badan ay ku wada galayaan haddaba adees weydiinaysa arrintan arrimaheena wada wuxuu galay koobtii quruxda badneed ee jacaylka wuxuu ka baxayaa dareenkii duugobay ee iskaaboolnimada laakiin saaxiib haddaad ku faraxsan tahay arrintan bartin lexar soo kalena YouTube-keena subscribe to Cabdilad deeqsigeena
mahadsanid.